waxaan taaganahay ilma adeerayaal like iyo commenti iyo share suuqay soo dardara xalaaliyo waxaa heli kartaa muwaadiniinta qadarinta gaarka nagu leh assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. mudan ra'iisul wasaare, maanta waad aragtay golihii shacbiga si fiican bay kuugu beegeen, laakiin waxaan sugaynay in sida aan kuugu beegnay aad caawa noogu beegto baastada caawa farmaajo ma lahayn. haddii mafaatiix lagaala tegay noo sheeg aan ku sheegin walaalayaal, sida la yiri maadaama farmaajo aynu lahayn baastada hadalka waa soo gaabinaa, laakiin waxaan rabaa in arrin yar oo ahamiyadeeda leh inaan fursaddan kaga faa'iidaysto. xilalka guddoonka baarlamaanka ama guddoonka golaha shacabka, guddoomiyaha waajibaadkiisa waxaa ka mid ah inuu u dhaqmo si dhexdhexaad ah. dhexdhexaadnimadaas waxay keenaysaa in badan waxyaabaha qaarkood inuusan ka hadli karin. ayaamahan aad baa waxaa looga hadlayay miidiyada iyo isgaarsiinta bulshada iyo shabakadaha qaarkood mashaakil iyo waxyaabo aan waxba ka jirin ayaa intaas socotay. mana hadli karo, waayo haddii aan hadlo baarlamaankay saamaynaysaa. marka weligay intii hadda aan guddoonso 4 sano oo soo dhammaatay waraysi labaan bixiy ma bixiyo waraysi, waayo dhinac hadduu hadlo waxaa laga soo saari karaa inuu dhinac u janjeersaday, marka dhexdhexaadnimadii aa dhumaysa. waxaa jira shabakado oo maarata been iyo mashaakil iyo wax aan jirin iyo khuraafaad ku hadlaayo oo dadka marin habaabiyo. waxay ilowsan yihiin in mikrofoonka ay haystaan iyo qalanka ay wax ku qorayaan in ammaano uu yahay. dadka waxaan uga digayaa walaalayaal shacbiga ha dhuminina. golaha shacabka wuu shaqaysanayaa, hawshiis waa qabsanaa, soo jeedinuu keenayaa, waa toosin, waa meeshii dalka laga hagayo. xukuumaddana waa addimaheeda. marka taa waxaan jeclahay mararka qaarkood maadaama guddoonka uusan hadli karin, haddii golihii shacbiga waxyaabo gardara lagu sheegaya ha dhegaysanina, toosiya. aad baan waxaan ugu ammaanayaa xildhibaano badan oo joogay oo rabi inay ka hadlaan aan ka joojiyaan idin ka hadlina, oo haddii kale waxay noqonaysaa yoyoytan iyo reer mas-uuliyad bay soo baxaysaa. sida maarata iiga qaateen inaysan hadlin aad baan ugu ammaanayaa. hase yeeshee mararka qaarkood waxay u baahantay dadka qaarkood in si asturan oo tartiib ah in loo toosiyo, waayo waxaasoo dhan shacbi baa dharkiisa ay ku dhacaysaa. waxaa hogaankaa naga xumaanay haddii aanan hadlaynin aan shubaanahay. isbaaru dhigtaa liiri, isbaar intay ka dhigtaan isin uma lihiin. qaar xildhibaana ii yimid oo yidhahdeen oday isbaar maad tahay. waxaan ku yidhi adigu ma xasan khayr maad akhyaarka tahay ergamu kuu soo dhistay? maya, hadda iska dhexfada warkaas. marka arrimaha noocaas oo kale inkastoo ay kabtan iga tahay, laakiin waa arrin muhiim ah inaan ogaano oo aan ka digtoonaano mustaqbalka. dadka soo noocaas u dhaqmayaan in la yidhaahdo waxaas raqiiska bisaag siyaasadeed buu gaaray shacbigeena, bisaag siyaasadeed buu gaaray baarlamaankeenna. marka wax ay naga tarayso male. annaka taas oo kale waxaan idhaahnaa ayinyogi ay tameen warsho ooftayna marka waxay yidhahdaan sheegaan, laakiin waa qaybka saliim. maanta waxaa war xumow laguwaa waxaa yidhi golaha shacabka 224 markuu ku ansixiyey, waxaa war xumow laguwaa. marka nimankii hadda tororogka sheegayay maxay sheegayaan? waxaan been lugtoolay lata been hal lugay leedahay, markii way ku feen. shalay saa lahaayeen, maanta saana soo baxday, marka beri maxay ku hadlayaan? marka waxaa fiican in marta aan ishara qabanno. aad iyo aad waxaa lihi warkii hala gaabsho. wasiirada waxaan ka codsanayaa inay u diyaargaroobaan shaqooyinkooda, ha qabsadaan. annagana usbuuca dambe xildhibaanadee waxaan bilaabaynaa dhismihii annaga gudahayna guddiyadii oo 15 guddi aan dhisayna haddii aan yidhaahdo. mar alla markii guddiyada ay dhismaanna waxaa bilaabanaya is-aragga wasiirada iyo guddiyada oo midba kiis ku beegan ayaan bilaabi doonaa. 26 abriil haddii aan la yidhaahdo baarlamaanka kalfadhigan wuu xirmayaa oo waxaanu aadaynaa gurmadkii abaaraha iyo deegaan doorashooyinkii inaan ka war doono. guddoonkana wuxuu galayaa diyaarintii kalfadhiga labaad inuu dejiyo ajendahoodii iyo haddii aan ku rogay arrimaha iyo istaraatiijiyada loo baahnaa.
wasiirada markaa waxaan is-araggeena u badnaan doonaa markii uu noo bilaabo kalfadhiga labaad ayuu u badnaan doonaa, laakiin intaas kalfadhiga koowaad oo dhan barlamaan kastaba wuxuu sameeya waa dhisidda maaragta hay-adaha dowladda ayuu dhisaa. madaxweyne waa la soo doortay, xukuumad waa la dhisay, ilaa aakhiri guddoomiyaala la doortay, ilaa aakhiri hadda waxaa noo haray tii annagana saamaynaysay oo ahayd oo annaga lagu saabsanay gudaheed inaan sisno guddiyadii 15 baarlamaanka inaan dhisno iyo arrimaha kale la xidhiidha. waxaan rabaa inaan hadalkay ku soo ganaanido. aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan guddoomiye u ahay golahan shacbiga oo asluubtii uu maanta wax ku waday sida madaxweyne u soo doortay, sida biseelka u soo socday inaan guddoonkiisa hayo.